وإن سلامي يا إخواني وأخواتي waxaan isweydiin jiray mar walba dadka Soomaaliyeed maxaa iimaanka ka qaaday qof walba wuxuu doonayaa si xun inuu wax ku kasbado iyadoo taasna looga diiday maalinta qiyaamada Ilaahay qofka uusan hortiisa ka suuleyn ilaa la weydiiyo waxyaalo badan waxaa ka mid ah maalkan meeshuu ka keenay iyo meeshuu ku bixiyay ayaa la weydiin doonaa siyaasadda waxaa lagu doonayaa maal ganacsiga waxbaa lagu dhacaya waxbaa la khiyaanaya qof walba wuxuu isku dayaa inuu wax khiyaano maxay tahay dadkan Soomaaliyeed khiyaanada Ilaahay uu ku ibtileeyo hadda ka hor wax igu dhacayaan idin sheegaya oo aan yaabkaan gudbig uga dhiga mar walba hadda ka hor khiyaanada idin sheegaya waxaa jirtay sida hataa aad maqasheen qoom dhan ayaa waxaa lagu haraagay ganacsiga iyo waxa ay khiyaanaan sidii lacagta ku keenaan marka waxaa jirtay waddan aan joogay mar raba inaan sheego hadda magaciisa marka maqaayad Soomaaliya ku taal meeshaasaan ku soo degay maqaayadan wax ka cuni jiray marka maqaayadu aad bay qaali u tahay waxa aan cunayana wax nafaqo leh ma baasto qalalan oo qudaar lahayn oon salad lahayn oo maraq macaan lahayn oo biyo iyo galaas la qasay oo cabitaan oo khafiifa oo macaan oo sonkor laga soo buuxiyay kalarna la mariyay ayaa waxa la iga qaadi jiray lacag aad u fara badan lacag $5 camal qadadii ka soo qaad marka meesha waa ku cusbay waxa maana kala garanay marka anigu marka meel imaado badana dadkan dhex galaa ayaan ka bacdi meelahan maray waxaan helay maqaayad dad ajnabi ay leeyihiin oo dadka meesha degan waddanka iska leh maqaayadii aan galay maqaayadii markaan galay qadan ka dalbaday maalintaas qadan dalbaday waxaan cunay dadku waxay cunayaan waa fiirfiiriyey waxaan ku qoran minigu aan fiiriyey waxaa iri ii keena cunto bismillaahir rahmaanir rahiim markii la ii keenay anigii ama kaagay waxaa la ii keenay saxan weyn oo buuxa oo ay saaran tahay cunto kala nooc dhinac bariisa ka saaran dhinac soora ka saaran dhinac qudaar la shiila ka saaran dhinac malaaya ka saaran dhinac digir la habeeya ka saaran dhinacna hilib ariya ka saaran iyo qudaar salaato iyo galaaskii aan Soomaalida meesheeda igu sii jiray mid ka weyn oo labadiisa ayaa la ii keenay oo seeka ah amba fadhiya oo isleedahay xataa biyo lagu darin waa cunay waa dhamay weliba kan Soomaaliya markaan maqaayadaas wax ka cuno hal saac ka bacdi gaajaan u dhima jiray tabardaro anigii dhamaa waa yaab laakiin kii waa dhamay markaan cunay waa dhidid maalintii oo dhan biyo cabay hatta cashadii waa cuni sababtoo cuntada aan cunay cunto aad nafaqo u badan bay cuntadii biyo le aan ku waashay awal xataa biyo maana cabi jirin calooshii ay fiicnaatay waa caafimaaday naftii ay ugu soo noqotay go'aan waxaan ku gaaray mar walba maqaayadaasaan wax ka cuni jiray lacagtii ay baaqatay meeqa laga qaaday ma taqaana wax u dhigma $1 camal meeshii $5 iga qaadi jiray taas wax $1 u dhigma ayaa la iga qaaday lacagtii ay baaqatay caafimaadka ay baaqday
naftii ay baaqatay meeshan weliba nadaafad wax dhan way dhaameen Soomaalida marka dad ayaa meesha ku halaagan Soomaalidii meeshii la fayaryar tahay oo lacagta looga dhuuqaya nafaqa darrana ku dish agtoodana khayrkii ayaala war dadkan wax la cuna oo dadka dhex gala Soomaaliya u fiirsana Soomaaligu waa bahal ku cunay kudkudo way ku dhuuqay dad ilaahay iimaan ku ka qaaday weeyaan waxa si raacda dawaad ogtihiin Soomaalida biibita ay tagaan shaah ka cabaan mar walba marka maqaayad Soomaaliya wax ka cabi jiray markii hore anigu sonkorta badan ma cabe Soomaalidu sonkor ayay ku shubayaan ay ku qasayaan wixii koob yar lagu keenaa bakeeriya waxa laga qaadi jiray lacag u dhiganta $1 koobka shaah koob shaah yar oo sonkor laga soo buuxiyo $1 waaya markii dhamaan kuwa u dhow meesha dadka degan mala yar wax shaah ku kariyaan baan tagay shaahan ka dalbada waxa la ii keenay koob argalaan yaa argalaan yaqaan koobka liitar camalo leegi ya nus liitar wax yaanu ma aqaan kulli argalaan Soomaalida waxa la dhigi jiray faras leh ay dhigi jireen markii hore Soomaaliya waagi hore koob faras leh jiri jiray oo caanaha iyo lagu cabo aniga aabaya jeclaa kulli koobkaas koob weyn waay koobka riiciyo waa liira dad taqaanaan hadii kala koob faras la oo ka weyn kan argalaan miya ma war koob weyn oo shaah oo la ii soo saaray caleenta riixanta liira la soo dhex galiya oo qoyana lagu dhex dhigaa hadana sanjabiil leh carfaaya macaan sonkorti wax la isku qiyaasin ayaa la ii keenay meeqa laga qaada ma taqaanaa aan ku qiyaasaa lacagba ma aha haddaan ira lacagtaas $1 u bedelaa $1 u bedelaa waxaan sheega ma aqaan حوالي إبر هل nothing محبما حتى العق ما واحد أنشرين يلا أنا العق مركا واسلاميل واسكو واسكو ضل هي وحو كسعودان لكن Soomaaliga saano biigala kii kale saano u shaqeysana iimaankii soo qaba ku khiyaani maayo waxa meel kasta way imaanayaan sicir barar ay ka ridaayeen wasaas meel kasta Soomaalidu soo gasho sicir barar musuq qas fawdo wasaq dhac balaayo ayay wadaan dadkan dibka Soomaaliku saan ka galay maxaa dadkan halaajiyo oo meeshii deegaan kiciya maxaa dadkan dhibaatadu ay ugu badan tahay wax kasta maxay u kicinayaan waa musiibo ayagii ayaa isgubaayay ayagii isbarakicinay ayagii isfawdaynay ayagii isqiyaanay ayaga naftooda halaagay ayaga maaragtay sicir barar isku riday waa musiibo taasay tahay diin baa la leeyahay waxa way dad waxaan Totaled 4 kilometers, 42 minutes, 52 seconds. Steps 5,023 steps. أو دينتي مركا دبكا سيارة بينا إذا لو ذاقو مركا أفر Workout pause. السلام عليكم.